munaasabad ballaaran oo si heersare loo soo agaasimay shaadin lagu guddoonsiinayo arday ka qalin jabisay gurmadka degdega ee bisha cas ayaa waxay maanta ka dhacday magaalada Buuhoodle. munaasabada ay ka soo qayb galeen waalidiin waxgarad culimo awdiin iyo dhakhaatiir. ugu horreeyna waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha bisha cas Cabdirasaaq Cali Durraan oo ka warbixiyay ardaydan ka qalin jabisay iyo faa'iidada ay leedahay waxa ay barteen ardaydu. xafladda qalin jabinta feeriseelka ururka bisha cas ee Buuhoodle xafladdaasoo aad aragtaan dadka ka soo qayb galay ee aan soo tababaray markaan ka gudbo halkaasi u noqdo ururka bisha cas waxa uu qabto oo tan ay ka mid tahay waxaanu qabanaa anagu samafal noocyo badan leh marka la soo ururiyaan 4 qaybood oo waaweyn. qayb waxa watan hayno oo ah tii laga aasaasay 2004 deegaanka Buuhoodle waa dugsiga ugu horeeyay ee tababar caafimaad ee laga furay deegaanka Buuhoodle waa mid ururka bisha cas ugu faan karo. markaan taa ka gudubno 4 qaybood waa qaybta feeriseelka ama tababarka caafimaadka, qaybta disableka ama lugolayaasha oo gaalkacay iyo Hargeysa aan u diro, qaybta baafinta oo aan gacanta ku hayo, iyo qaybta hooyada dhallaanka NCH-da oo halkan aan nooga furayn hadda. 4 qaybood waaweyn bay u shaqeysaa. dhanka kale waxaa iyaguna munaasabada ka hadlay waalidiinta ardayda iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay. waxaan markood mahadcelin Ilaahay baa mahad iskale, marka labaadna waxaan macallinkayga Cabdirasaaq Cali Durraan baa mahad iskale, marka saddexaad waxaan mahad iskale ardayda u soo dhabareegtay u soo maxaan ku sheekay soo xafladooda inay ka qabsadaan u soo qaban qaabisay waqtiga ugu horreeyay halkan uga mahadcelinaya. halkan waxaan u tagnay inaan taqalchino feeriseelka qiimo badan baa u diraya maadadiisa inuu soo barbaariyaan heer soo gaadho. marka labaad waxaan salaanta siinayaa maamulaheega Cabdirasaaq Cali Durraan oo heegana ahaa garabka noo soo dhigtay oo noo soo dulqaatay wax kasta sameynaba ma rabno inaan haday maamul tahay haday tahay deegaan iyo haday tahay wax barasho dhammaan inaan horumar sameyno ayaan Allah inoo rajeynayaa dhammaan wanaagsantiin. waxaan ayaa ugu yeeray ururka bisha cas in arday u tababaro gargaarka degdega. waxaa kaloo mahad ardaydii u soo dhawaaqay intii ay socotay waxbarashada. ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo gabagabeeyay Dr. Cali Xukun oo kamid ah dhakhaatiirta magaalada Buuhoodle. waxaa labaad oo ii farxada inaan helo 47 arday oo ku soo biiray bahda caafimaad. hadda ayaad bayska caafimaadka soo qabsatay. caafimaadkuna waa qofka bini'aadmiga badbaadinta qof nool inaad badbaadiso. ka imika dhashay ka urka ku jira ka hooysida dhammaan qof nool inaad badbaadiso. waxaa in ka xaraana qabyaalad, waxaa in ka xaraana inaad cugdada soo qaadaan. si kastaba ahaatee munaasabadan ardayda lagu guddoonsiinayo shahaadooyinka ayaa waxay ku soo dhammaatay jawi aad u wanaagsan. maxamed cali bile telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Buuhoodle.